Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibada qiimaha badan loo ku soo dhawaada kanaalka YouTube ee Kamil Tutorials. Videogan kooban waxaan kaga hadli doonaa habka ugu fiican ee aad sawirka uga saari kartid background. Videogeena waxaan u qaybin doonaa 3 qayb. Qaybta koowaad introduction ayaynu ku arki doonaa. Qaybta labaadna inaynu gabi ahaanba sawirkan background-ka ka saarno. qaybta u dambeysana waxaynu ku baran doonaa habka background fiican loo geeyo sawirka looguna hagaajiyo. Balse inta aanan videoga guda gelin waxaa jiray videogan ka horeeyay oo aan kaga soo hadalnay habka background-ka looga bedelo sawirka. Waxa isweydiin mudan markaa maxaa farqiga u dhexeeya labadan video. Sida aan wada ognahay application-kan Photoshop waxa uu leeyahay tools dhowr oo kuu fududeynaya inaad sawirka background-ka ka bedesho. waxaana ka mid ah eraser tool, quick selection tool iyo paint tool. Paint tool marka laga reebo labada kale shaqadoodu waa basic, waxayna awoodaan xaalado gaar ah inay saaraan background-ka. Videogaasna waxaan kaga soo hadalnay toolka loo yaqaan quick selection tool oo la adeegsado marka background-ku sawirku uu yahay hal midab. waliba waxaa sii raaca shardi kale oo ay tahay inaad ogsoonaato background-ka aad bedelaysa iyo sawirku inaanu is ekaan. tusaale, background-ka sawirku inuu madow yahay, sidoo kale sawirka shaatigiisuna inuu madow yahay. xaaladda application-ku ma kala saari karo dhammaan uu select gareyn, taasna maaha mid hadafkii aad rabtay ka run sheegaysa. cilada kale ay leeyihiin labadan option waxaa ka mid ah ma awoodi karaan inay ka saaraan sawir leh background ay ka dambeeyaan dhir, guryo, gidaar ama wixii la mid ah. ha yeeshee option-ka paint tool oo aan videogeenan ku qaadan doono waxaas cilad aan soo sheegno dhan saameyn kuma yeelanayaan haddii aad si sax ah u raacdo tallaabooyinka aan qaadi doono. mana aha tool ay shaqadiisu tahay auto, taa waxaan ka wadaa mid isagu ismaamulaya, balse adiga ayaa meesha aad rabto jaraya halkaanad rabina deynaya. waxaan filayaa hadda in ay ku kala cadaadeen toolskaas farqiyada u dhexeeya iyo shaqadooduba. sharaxaada kooban ee aan kasoo bixinayna ay nagu filan tahay. hagaag, waxaan si toos ah u guda geli doonaa qaybta labaad ee videoga. sidaan horeba u sheegnay aan ku baran doono inaynu gabi ahaanba sawirkan background-ka ka bedelno, geynana background temporary oo hadhow aynu sii bedeli karno. application-kan isticmaalaya waa application-ka Photoshop 2019. tallaabada koowaad ee aan qaadayna waxay tahay inaynu sawir soo gashano. habka loo soo gelinayo haddaynu isla eegno file ayaad aadi, waxaad kasii dooran open. waxa uu ku dhex keenayaa computerkaaga. markaa qaybta uu computerkaaga ku yaalo sawirku ayaa dooran, kadibna sawirkii ayaad click siin. sawirkii wuu soo galay, markaa background ahaan ayuu soo galay. background-ka ayaynu ka bedelaynaa, layer ayaynu ka dhigaynaa si aynu isbedel ugu sameyno. qufulka ayaa dul tegi, click baad siin. click markaad siiso waxaan u jeednaa inay noqotay hadda layer. tallaabada xigta aynu qaadayna waxa weeye inaynu samaysano layer kala cusub. option-ka markaad dul tagto ay ku qoran tahay create new layer ayaad ku dhufan. markaa layer cusub ayaa inoo samaysmay. layer-ka cusub markuu inoo samaysmo waxaynu ku shubi doonaa color. waxaynu dooran doonaa paint. right click ayaad siin, markaa kaa dhexe ay ku qoran tahay paint bucket tool ayaad dooran. halkana color-ka ayaad bedelaysaa. markaa anigu color-ka green-ka ayaan doortay, aduguna color-kii kale aad jeceshahayba waa dooran kartaa. sababta aan green-ka u doortayna waxay tahay background-kaygana qayb green ah kuma jirto, sidoo kale sawirkan sida dharka oo kale wax green ah kuma jiraan. markaa midab aan meesha laga helayn ayaad dooranaysaa. okay ayaan dhihi, color-kii halkan baan ku shubo, click ayaan siin, color-kii wuu ku shubmay hadda. laakiin waxaa qarsoomay sawirkii. sawirka waxaynu soo daba marin doonaa color-kan oo aynu keeni doonaa sawirka hoostiisa si uu sawirku inoogu soo muuqdo. waxaan sameynaynaa si aan u hoos marino, left click ayaan la qaban doonaa, kadibna waan soo jiidaynaa oo hoos marinaynaa. shortcut-ka aan xagga hoose ku qorayna waad adeegsan kartaa. markay taasi inoo soo baxdo waxaynu dooranaynaa layer-ka sawirka. layer-ku markuu ku dooran yahay waxaad tegaysaa paint tool halka ay ku qoran tahay, right click baad odhan, markaa kaa u sarreeya ay ku qoran tahay paint tool ayaa dooran. halkana
wuxuu joogaa shape uma baahnin path baynu halkaana ka dhiganaynaa. intaa markaad bedesho waxaan samayn si aan u select gareyno una kala saarno meesha godgodan iyo meesha toosan. sawirka ayaynu zoom dhahaynaa control plus markaan nidhi uu soo dhawaaday waxoogaa kusoo darno. waxaan ka bilaabaynaa qaybtan waxa muhiim ah ay tahay inaad ogaato laba mid markaad sawirka select gareynayso degdeg inaad iska ilaaliso oo si taxadar leh aad u select gareyso sawirka, iyo inaad sawirkii maxay tahay zoom dhahdo oo isagoo ka fog aanad select gareyn. waayo markuu sawirku ka fog yahay ma kala garanaysid meesha godan meesha toosan. marka labadaas mid waa inaad ogsoonaato. sidaas ayaad u wadi control Z ayaad dhihi meelaha ka khaldama si aad dib ugu noqoto.
hadda waynu dhadhownahay waxba kama hadhin meeshii aan ka bilownay. waxaan geynaynaa oo ku daba qabanaynaa bartii aan ka bilownay. inta click markaan si aan isku xidho inuu iska fogeyno sawirka zoom out. right click ayaynu dhahaynaa, waxaynu dooranaynaa make selection, feederkuna 0 ha ahaado. okay, hadda selectionkii caadiga ahaa laynoo sameeyey. selectionka marka laynoo sameeyo waxaynu tegaynaa inagoo joogna layerka sawirka select. waxaan kasii dooranaynaa select and mask. select and mask markaan nidhaahno qaabkan buu soo baxay. haddii halkani ay ever tahay waad buuxinaysaa 100% baad ka dhigaysaa si backgroundkii hadeer greenka uu soo baxo. qaybta radiuska waxaynu ka dhigaynaa 1 ilaa 1 baan deyn karnaa adigoo eegaya resolutionka sawirka. ilaa 3 meelaha ugu deyn karnaa. feederkana haddii uu sawirkaagu u baahan yahay waad ku samayn kartaa. marka hadda sawirkan uma baahna. kana -20 ayaan ka dhigaynaa ilaa 20 meelaha ugu deyn karnaa. hoos baynu daadegi, halkan baynu soo furan, waxaynu ka dooranaynaa new layer cusub noo samee. okay, layer cusub baa laynoo sameeyey. sawirka backgroundkii dambe waynu ka saarnay laakiin qayba ayaa weli ku harsan. halkan oo kale sidoo kale qaybtan iyo qaybta 3 meelood ayuu ku jiraa. 3 meelood waynu ka saaraynaa, waynu soo dhaweynaynaa marka hore si aynu uga saarno. waxaynu ku noqon optionkeeni paint tool. halkan baynu ka bilaabaynaa. selectionkii markaynu sameynay isku soo xidhnay, right click baynu dhihi make selection ayaynu dooran. selectionka markaad sameyso waxaad dooran qaybta keyboardkaaga ay ku qoran tahay delete ama del. kadib saas ayuu ku baxay. highlightka si aad uga qaadana waxaad taaban control D. waa ka uu ka qaadnay backgroundkiina waynu ka saarnay. isla sidiisii lamida halkanna waynu ka saaraynaa. soo dhaweynaynaa. sidii aan kii horeba ku soo sameynay right click ayaan dhihi mar kale make selection feederku 0. okay, selectionka marka la inoo sameeyo keyboardka ayaa delete taaban. markaas saas ayuu ku baxay backgroundkii aynu rabnay inaynu saarno. control D si aynu highlightka uga qaadno. si fiican ayaynu uga saarnay. halkan baa hadhay oo ah halkii ugu dambeysay ayaynu ka saaraynaa.
right click ayaynu dhihi make selection. Okay, highlight marka uu fulo keyboardka delete ayaan taaban, control D, saas ayuu highlight uga qaadmay. waxaynu ku guuleysanay inaynu sawirkii ka saarno backgroundka oo hadda aanu wax background ku jirin, isla markaana aynu awood u leenahay inaynu qaadi karno halkaynu doono aynu geyn karno. waxaan u gudbaynaa qaybta saddexaad ee fiidiyowga oo aynu sawirkan geyn doono background kale, isla markaana ku habeyn doono. backgroundka linkigiisana description-ka hoose fiidiyowga waad ka heli kartaan. marka hore backgroundka ayaynu soo gashanaynaa, file ayaynu tegaynaa, open backgroundkii oo ka inoo soo galay. sawirkii ayaynu dul tegaynaa, waynu qaadaynaa, waxaynu dul geynaynaa halkii backgroundka. control T ayaynu taaban si aanu sawirka u waaweyneyno, xoogaa meesha ugu fadhiisino. sawirkana xoogaa aan soo yareyno, sawirkana crop ayaynu ku sameyn doonaa, qaybtan ayaynu ku soo yareyn doonaa ka enter. sawirkii waa kan, move toolkii ayaan dib ugu laaban. sawirka hadda waa la fahmi karaa in meesha la keenay, marka caws baynu keenaynaa si aynu u qaladno. place embed kan cawskii soo qaadanaynaa, cawskii baynu halkan hoose baynu dhiganaynaa. cawsku uu ka duwan yahay cawska kale, markaa waynu sheekaysiin doonaa. layerka cawska ayaynu dooran, image baynu tagi, adjacent color selection. halka redka ayaynu bedeli, green baynu ku bedelaynaa. xaggan hore ayaynu socodsiin, sidoo kale qaybtana hore. halkana okay, mar kale ayaynu ku noqonaynaa haddana halkii. ilaa intuu uga ekaanayo waynu wadaynaa. saddex jeer markii aan ku celcelinay adjacent-ka, hadda wuu ekaaday, colorkoodina way isqaatay. marka waxaynu tegaynaa backgroundka, waxaynu gelin doonaa hard si uu xoogaa ifaa u sameeyo. backgroundka ayaanu dooran, waxaynu kasii dooran qaybta image and configures. daaqadda ayaynu xaggan usoo kaxayn si aanu aragno sawirka isbedelka uu qaato. waynu wadaynaa ilaa 61 meelaha gaarsiin. okay, backgroundkii dambe wuu isbedelay. sidoo kale cawskana waynu bedelaynaa, layerkiisa ayaynu dooran doonaa oo kana image configures. iyana xagga maynu qaadaynaa, isagana intii in lamida ayaynu sameyn doonaa 61. okay, sawirka laftarkiisa isagana aynu gelin doonaa xooga hadha. layerka sawirka ayaynu dooran, adjacent configures. isaga wax badan siin mayno,
yar baynu xaggan wadaynaa ilaa 10. Okay, sawirkii waynu dhamaystirnay. laba marxaladood baynu soo marinay, inaynu background-ki ka saarnay iyo inaynu keenay background-kan uu hadda joogo. Markii horena uu sidan ahaa, imikana uu sidan yahay. Ka isbedelka aan sameynay waxaan filayaa inaad adiguna sameyn karto. Tillaabooyinka aan soo qaadnay haddii aad si sax ah u qaado, waxaad ku guuleysan doontaa inaad sidan oo kale background-ka uga saarto, isla markaana background kale aad u geyso. insha Allah casharaan kale oo editan ahayna way noo soo socdaan. yaan la moogaan fadlan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.